السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر oo maantana halka kan idinka soo baahin doona barnaamijyadeena taxanaha ahaa. Waxaynu ku dhex jirnay barnaamijkeenii maahmaahyada Soomaalida ee weliba ahaa nooca saddexleyda ah. Bal waxa aynu maantana halkii ka sii wadi doonaa maahmaahyadii saddexleyda ahaa. Maahmaahda koobaad ee aan maanta idin hayaa waxa weeye saddex ha ku degdegin, saddexna haba ku darin, saddex se ha u daymo la'aan. waa sagaaley maahmaahday, waa saddex min saddexa. saddex ha ku degdegin, saddexna haba ku darin, saddex se ha u daymo la'aan. waxaa la yidhi dagaal ha ku degdegin, ku sokeeye haba ku darin. dagaal ha ku degdegin, ku sokeeye, dagaal sokeeye haba ku darin. haddii sarra ku dayn waayo ha u daymo la'aan. dagaal ha ku degdegin, sidiisaba dagaalku dee dhib mooye ma keeno dheef. dagaalku dhimasho mooye wax kale ma keeno. colaadu kala fogaansho iyo maxaanku dhahdaye geeri iyo dadkii oo aad colowdaan iyo xididkii iyo xigaalkiioo kala guura iyo dadkii oo aan isbixin mooyaane faa'iide kale lagama helo. dagaalka dhibunbaa laga helaa, dheef lagama helo sideedaba. markaa saddex ha ku degdeginoo dagaal ha ku degdegin baa lagu yidhi. saddexna haba ku darin, saddex se ha u daymo la'aanin. dagaal ha ku degdegin, ku sokeeye haba ku darinba. dagaalka sokeeyuhu dagaalka caadiga ah wuu ka sii xun yahay, waayo dadkii way wada degan yihiin, meel baa la wada yaallaa. dadku waa inan iyo abtigii, waa wiil iyo seedigii, waa la isku maran yahay. deegaankaasi waa deegaan isku maran. mar haddii isku deegaan la yahay oo maxaanku raa uu dagaalku sokeeye dhaco, halkaa waxa ka dhacaya dagaal xun oo lagu riiqda ayaa ka dhacaya. la isbixin maayo, cidna la bixin maayo. ninku inanku abtiga u yahay wuu gowracayaa, inankuna ninka abtiga u ah wuu gowracaya. dagaal sokeeye markaa looma baahna. dagaal sokeeye haba ku darin. haddii sarra ku dayn waayo oo lagaa gardaran yahay oo xoolahaagii iyo la rabo in ma garanaysaa waxaagii dee ay rag iska qaataan, dee ha u daymo la'aanin baa lagu yidhi. yacni waa marka aad weyda xal kale, waa halka ugu dambaysa dagaalku. mar walba waxaad isku daydaa in waxaa sidii aad u xallili lahayd ama arrintaa idin dhex martay iyo dhibaatadaa idin dhex taalla sidii aad xal waara ugu heli lahayd. haddiise ay ka maarsan weydo ha u daymo la'aanin. dagaal ha ku degdegin, ku sokeeye haba ku darin. haddii sarka ku dayn waayo ha u daymo la'aanin baa lagu yidhi. waa yahay waxa kale oo la yidhi guur ha ku degdegin. guur ha ku degdegin. guur sahan la'aaneedna haba ku darin. haddiise aad madi tahay ha u daymo la'aanin. guurka sidiisaba waa inaad firta raacdaa ee aanad foolka uun raacin. yacni quruxda wejiga ka muuqata, quruxdu waa laba: quruxda dahsoon iyo quruxda muuqata. quruxda muuqata uun ha raacina, quruxda dahsoon raac. firta raac, foolka ha raacin. guur ha ku degdegin, yacni waxaa loo jeedaa ka fiirso, ka hubso. waxay tiraa soomaalidu guurku marka horena wuu sina dhuuban yahay, marka dambena wuu sina ballaadhaa. yacni waxaa loo jeedaa guurka waa inaad ka hubsataa, waa inaanad ku degdegin, waa inaad sahan gashaa. laba sahan baa jira: sahan guurumeer iyo sahan geeda doon baa jira. sahan guurumeer waa maxay? waa ninku marka uu raadsanayo gabadh isaga ku habboon oo dhiggiisa ah oo kaalinta ka maqan buuxisa, ayaa la yidhaahdaa ninkaasi wuxuu ku jiraa hebel. waa guurumeeroo sahan guurumeer buu ku jiraa. ama wuxuu raadinayaa meel reerku dego oo waa sahan geeda doon. markaa sahanku waa labadaa: sahan guurumeer iyo sahan geeda doon. waa inaad sahan guurumeer samaysaa haddii aad tahay nin guur doona. waay, guur ha ku degdegin. guur sahan la'aaneed haba ku darin. yacni guur aanad sahansan, oonad inanta hooyadeed arag, aanad yacni aqoonin, oonad maxaanku dhahdaayey inanta aabbaheed aanad aqoon u lahayn, oonad reerkay inantu ka dhalatay aqoon u lahayn. guurkiisa ha ku degdegine. horta reerka baro, firtooda baro, waxa weeye sida ay yihiin baro. inanta adeeradeed iyo abtiyaasheed baro, hooyadeed iyo habaryaraheed baro. waxa weeye inan waliba
waxay tiraa soomaalidu inan waliba saddex dhalkay hooyadeed ugu tagtaa inantu hooyadeed unbay raacaysaa hadhow waxay socotaba kolkay u badato 3 jeer markay dhasho ayaa laga yaabaa inay astaamihii hooyadeed yeelato qaarna waxaba laga yaabaa inay marka u horeeyaba yeeshaan iyagoo marcuradaba markaa guurha ku degdegin guur sahan la'aaneed haba ku darin guurkaagu mar walba sahan ha lahaado guur la soo sahamiyey oo la soo sugay oo laga baaraan degay oo dhan walba laga eegay oo aad la tashi fara badan samaysay oo dhammaan cidda uu guurkaagu quseeyo oo dhan aad kala tashatay ha ahaado laakiin guur aad iska dhaqaaqday oo adigu laablakacuun iska samaysay oo aad qofuun iskaga dul dhacday yuu ahaanin baa laleeyahy waa yahay guur ha ku degdegin guur sahan la'aaneed haba ku darin haddiise aad nin madiyo tahay oo waalidkiisii dhalay aabbihii iyo hooyadii ay isaga oo keliya leeyihiin dee ha u daymo la'aan inaad deg deg isaga guursato kolkol baabuu ku odhanayaaba maadaama aad madi tahay fursad badanna aanad u haynin in aad la tashi fara badan samaysay iyo sahan guurumeeroo fara badan allaylehe tan bisinka u qabo oo waxa weeye hawsha hore isaga dhammee way dhici kartaa waa yahay markaa saddexdaasi waa saddexdaa waxaa la yidhi saddex ha ku degdegin saddexna haba ku darin saddex se ha u daymo la'aanin guur ha ku degdegin guur sahan la'aaneed haba ku darin guur ha ku degdegin guur sahan la'aaneed haba ku darin haddii se raku dayn waayo ha u daymo la'aan dagaal ha ku degdegin ku sokeeye haba ku darin ku sokeeye haba ku darin haddii se raku dayn waayo ha u daymo la'aan guur ha ku degdegin guur sahan la'aaneed haba ku darin haddaad se madi tahay ha u daymo la'aan galma ha ku degdegin baa la yidhi galmo ha ku degdegin tu dharaareed haba ku darin ta dharaartu iyadu waa reeban tahayba ma reebana dee laakiin waa laga fiican yahay baa loo jeeda tu dharaareed haba ku darin haddii se aad ka fursan weydo dee ha u daymo la'aanin hadduu dee ninkii wakti kaleba waayo oo dee laga yaabo in hawla iyo shaqooyin iyo hawla kale ku mashquuliyaanba waxa weeye dee ha u daymo la'aanin saddexdaasina waa saddexdaa intaa bal waxaan idinku dari doonaa maanta maahmaahyo anigu aan iska leeyahay insha allahu oo aan raba inaad iga tijaabisaan oo aad ka soo falcelisaan mahmahahaa soo socda anigaa dee muxuu ahaayey bal hadda isku dayey bal markaa waa ila eegi doontaan idinkuna ma iga soconayaan mise dee waa laygu diidayaa hadday iga soconayaan iisoo sheega haddaa igu diidan tihiinna iisoo sheega mahmaahyadani waxay leeyihiin kow waxaan idhi saddex ha ku degdegin saddexna haba ku darin saddex se ha u daymo la'aanin furiin ha ku degdegin furiin inaad gabadh furto ha ku degdegin furiin gabadh qoyanna haba ku darin yacni gabadh dhalaysa furiinkeeda haba ku darin haddiise ay nafta kuu keenta ha u daymo la'aan hadday laakiin gabadhii iyadu codsato oy nafta kaa saarto oo waxa weeye aad ka fadhiisan weydo oo noloshaadii degi weydo ilaa aad warqadeeda siiso dee ha u daymo la'aan markaasoo aad xal kala weydo furiin ha ku degdegin gabadh qoyan furiinkeed haba ku darin haddiise ay nafta kuu keenta ha u daymo la'aanin waa yahay laba qaybteeda labaad waxay leedahay soor ha ku degdegin soor waa cunto soor ha ku degdegin tu quudheed haba ku darin soor quudheed meel aan lagaa casuumin inaad iska tagto haba ku darin haddiise naftu ay ku hayso ha u daymo la'aanin de haddii gaajo xumi ku hayso ood nin safar dheer soo galay tahay ood la soo kulantay reera ducaystay oo aan lagaaga yeedhin ood iska soo dul dhacday dee ha u daymo la'aan inaad aslad iyo laba wixii alla kaaga calfo ka cunto halkaa soor ha ku degdegin tu quudheed haba ku darin haddiise ay gaajo ba'ani ku hayso ha u daymo la'aanin ama naftu ay ku hayso ha u daymo la'aanin hadal ha ku degdegin hadal ha iska hadlinuun hadal intuu afkaaga ku jiruu ammaanadaa yahay baa layidhi hadal ha ku degdegin hadal lagaa leeyahay haba ku darin hadal aanad adigu lahayn ee qof kaaga habboon uu meesha joogo oo uu qof kaa leeyahay ha boobin hadal ha ku degdegin ku lagaa leeyahay haba ku darin ku lagaa leeyahay haba ku darin haddiise aad weyde cid kaa furata ha u daymo la'aanin haddii hadalkii cid kale oo arrintaa u baxda aad weydo dee ha u daymo la'aan inaad adigu jawaabtii bixiso hadal ha ku degdegin ku lagaa leeyahay haba ku darin haddiise ay cidi kaa furan weyda ha u daymo la'aanin ayaa la yidhi
waxa la yidhi dumaal ha ku degdegin dumaal ha ku degdegin dumaal lagaa leeyahay haba ku darin haddiise ay gabadhu adiga ku jeclaato ama ay ku jamato ha u dayma la'aande dumaal sideedaba ha ku degdegin tun lagaa leeyahay oo nin kaaga sii dhowi uu jirana haba ku darinba oo iyada haba gelinba laakiin haddii gabadhii la dumaalayey ama ninkeedu dhintay haddii ay adiga ku doorato ha u dayma la'aan matalan waa 4 nin oo walaalaa ama waa 5 nin oo walaalaa ninkii dhintay ninkii ku xigay ayaa dumaasha leh adigoo u yar bay tiri gabadhii aniga kaasunba ay dumaali kara ku kale ay dumaali maayo markaa ha u dayma la'aan baa lagu leeyahay waayahay taasina waa taa markaa mahmahda aan hal mar idinku soo wada celiyo 3 ha ku degdegin 3 haba ku darin 3 se ha u dayma la'aanin furiin ha ku degdegin gabadh qoyan furiinkeed haba ku darin haddii se ay nafta kuu keenta ha u dayma la'aan soor ha ku degdegin tuquureed haba ku darin haddii se ay naftu ku haysa ha u dayma la'aan hadal ha ku degdegin hadal lagaa leeyahay haba ku darin haddii se cid kaa furata aad weyda ha u dayma la'aan halkaasi waa mahmahdaas iyadu waa taa mahmahda kalena waxay leedahay 3 ha ka daahin 3 ha ka daahin guur ha ka daahin guunyana ha ka daahin gaafna ha ka daahin guur ha ka daahin yani waxa weeye waqtigu yuu kaa dhicin guurso laakiin sahankii guurka iyo wixii aynu soo sheegnay oo dhan sameede guur ha ka daahin guunyana ha ka daahin xoolaha baylaha tirkoodana ha ka daahin ama lacagtaada iyo sidaad u maamulaysa ha ka daahin oo dee ha ka habsaamin gaafna ha ka daahin qof saaxiibkaaya ama qaraabadaada ama jaarkaaga ama ehelkaaga oo aroostay oo guursaday oo gaaf samaystay in aad xafladiisa ka qayb gasho dee ha ka daahin taana 3 ha ka daahin 3 ha ku daahin 3 ha ku daahin iyaga 3 iyaga ha ku daahin qaad ha ku daahin qabyaalad ha ku daahin qamaarna ha ku daahin qamaarkaa waxaan ku keenay marka dhulkan qurbaha aanu joogno waxa aad iyo aad ugu badan bahalkaa qamaarka la yidhaa mishiinaa jira lagu guro lacagta oo lagu qamaaro oo waxa weeye halkaa ay raggu habeen oo dhan fadhiyaan oo laga yaabo inay qaarkood uba hoydaan oo ay ku saamaleelaanba oo aanay guryahoodiiba tegin markaa qaad ha ku daahin qabyaaladna ha ku daahin qamaarna ha ku daahin 3daas iyay waqtigaaga kaa lumin ayaa loo jeedaa 3na iyaga haba la daahinba 3 arrimood ha la daahin ha la habsaamin salaad tukashadeed ha la daahin soon gudashadii ha la daahin salaan iyo isnabdaadin ad dadka kale ee muslimiinta aan nabdaadisana iyadana ha la daahin baa layidhi 3daana ha la daahin waxa kale oo uu yidhi 3 way dishaa 3 way dishaa baalidu geesiga way dishaa bootaduna haweenka way dishaa baraq nugaylkuna ragga wuu dilaa baalidu waa naagta basarida ah way dishaa ninka geesiga ah raggii qayrkii ahaayoo dhan bay hoos marisaa markaasaa la yidhaa wadniyo ninku nin fiican buu ahaan jire maxaa ku dhacay dee balaayuu guursaday baali buu guursaday bootaduna haweenka way dishaa haddii gabadhu booto badan tahay waxaa la yidhaa ninkii hebel ahaa ilaahay shabeel buu xilo uga dhigay waa naag booto badanoo maalin walba dad bay islaynayaanoo cid bay is haystaan marka adiguna mar walba saldhigunbaa taagnaanaysaa ama shookiga baraq nugaylkuna ragga wuu dilaa baa layidhi ninku hadduu baraq nugul yahay oo ninkii yidhaahda waa naga amste maxaad ku hadlaysaaba uu wadnuhu dabada ka dhaco kaasoo kalena looma baahna oo ragga wuu dilaa baalidu geesiga way dishaa bootadu haweenka way dishaa baraq nugaylkuna ragga waa dilaa waxaa kaloo la yidhi 3 waa qurux dumar 3 waa qurux dumar 3 waa qurux dumar afgaaban adaab iyo aqbalaad inay gabadhu afgaaban tahay oo aanay gabadh hadal badan oo turrogle aanay ahayn sida mashiinka u hadlaysa afgaabni waa gabadh aan hadal badnayn adaab akhlaaq dhaqan wanaagsan gabadh asluub fiican leh iyo gabadh aqbasha odaygeeda baa loo jeedaa ama saygeeda aqbasho wixii uu soo jeediyo 3daasina waa qurux dumar qurbaha 3 baa laga bartay qurbaha 3 baa laga dhaxlay arrimood qabyaalad qaraabo la'aan iyo qiiro wadaniyadeed waxaynu geli doonaa insha allahu oo aan idiin soo wadaa qayb kale oo cusub iyaguna
oo ah mahmahaha kowleyda ah ama labaleyda ah ee aan ahayn mahmahaan imika aynu ku jirnay 3 ley iyo wixii ka badan 4 ley 5 ley 6 ley ilaa 15 ley marka mahmahahayga mahmahda ugu dambaysa ee aan ku soo khatimayaa waa mahmaha kowley oo waxa la yiraahdaa magaceeda faagan riixo faagan aanad lahayn ha riixin faaganku waa bahal caruurta la saaro oo waa gaarigan yar ee caruurta lagu riixo marka ay aanay wali 2 jir ilaa wixii ka hooseeya hadday doonaan iyagoo 2 jir ka weyn baaba lagu riixa oo taayiruu leeyahay 3 taayir ama 4 taayir dhulkan qurbaha inta badan lagu isticmaalaayay dee wadadii baa meel loogu tala galay marka faaganku waa bahalka yar ee la saarayo ilmaha inaga wadankeennii dee Soomaalida lama isticmaali karo waayo wadooyinkeennii ma hagaagsana marka faagan riixo ku aanad lahayn riixin maxaa looga jeedaa nin baa riixaya faagan ninkaasi faaganka ilmaha saaran isagu muu dhalin gabadhu iyadoo garoob uu guursaday ilmahana nin kala dhalay isagoo faagankii ilmihii aanu dhalin ku riixaya ayuu ninkii dhalay suuqa kaga soo horbaxaya markaasuu ku oranaya wariya ilmaha aayar wade beerkiiba afka ka yimid markaasuu ku oranaya gabadheena ninkani waayo markaasay oranaysaa dee waa kii dhalay aayar wad waa runtii marka faagan riixo ku aanad dhalin ha riixin dee adeer nin qayrka iyo ku canaanan adigoo faagan riixaya oo ilmaha ku jirana adigu aanad dhalin ee uu nin kala dhalay faagan riixo ku aanad dhalin faagan riixo faagan aanad lahayn ha riixin faagan riixo ku aanad lahayn ha riixin faaganka ilmahaad ku riixaysaa kuwaad dhashay uun ha ahaado kuwaad dhashay uun ha ahaado hadday ka fursan weydo dee kuwaad caawinaysaa ha ahaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiise leh